الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد waxaynu ku dhex jirnaa bishii Ramadaan waxaynu qaadanaynay cilmiga cibaadooyinka kala nooca aynu ku jirno cilmiga ay leeyihiin ka Ramadaan iyo ahkaamteeda iyo aadaabteeda in hore u soo qaadanay waxaynu ogsoonahay dadka muslimiinta bisha Ramadaan dhexdeeda waxay bixiyaan sakada oo iyaduna arkaanu islaamka mid kamid ah marka casharada inaynu qayb ka siino haday tahay aqoonteeda guud faa'iidooyinkeeda iyo ahkaamteedaba waa muhiim waxaynu ku horeynaynaa casharkeena u soo horeeya الترغيب في أداء الزكاة والترهيب من منعها sida islaamkeenu u jeclaysiiyay sakada inuu qofku bixiyo iyo daliilada ku soo arooray iyo sida la isaga digay qofku inuu sakada ku adaygo iyo faa'iidooyinka ku jira bixinta sakada aan ka horeysiinay islaamku waxa uu ku waajibiyay xoolaha sakada uu ku waajibiyay waa 6 nooc dahabka lacagta xoolaha nool midhaha beeraha ganacsiga iyo wax loo yaqaan rikaas hadda ma hayno waa maal isagoo aasan intoo la helay kadibna qofkii muslimka la soo baxay 6 nooc kullu mid waliba tafaasiil dheeraad buu leeyahay iyo casharo badan oo waxa jira fiqiga islaamiga kitaab la kitaabu zakaa oo waqti dheer qaadanaya waynoo dambeyn doontaa waxyaabaha aynu ka dooranayno marka ilaahay uu ka warramayo subxaanahu wa tacaala sakada iyo dadka ku dhiirigeliya nabigu la hadlo waxa uu khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakarun lahum dadka xoolahooda waxaad ka qaadaa sakaad ku nadiifinayso oo ku barakaynayso una ducee waliba nabiga ku salli balay sallallahu alayhi wasallam isaguna waa ku salliyay oo uu duceeyay cidii sakada u keentay isagoo amarka ilaahay qaadanaya marka ayadu waxay dhiiri gelinaysaa inuu nabigu qaado iyo qof kasto muslimiina sakadii bixiyo waxa ilaahay uu tilmaamay in arkaanu islaamka kamita iyo sifooyinka muuminiinta innal muttaqiina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حوله هذا حق عيما باكرا أي كبحين شرينو سكدا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كعلوا ويا مؤمنين تيجا يسحقه حبوا لها يكون سفيا وحكم إذا سكدا بحياء waxaa saddexaad oo kamid ah siyaabu islaamku inoo jideeyay waa min ghaayati tamkiin almu'miniina fi al-ard markuu ilaahay dhulka gacanta inoo galiyo madax inaga dhigo waxyaabaha aynu qabanaabay kamid tahay inaynu sakada oogno inaan ku safaadin alladina imakannahum fi al-ard aqaamu salaa wa aatu zakaa wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa kuwa hadan madax ka dhigaba ilaahay sakada wagaano salaadana way ogaan sakadana way bixiyaan wuxuu maalku ku barakoobaa waa sakada yamxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat inta soo aayadood waxay dhiiri gelinayaan qofka muslimka inuu sakadiisa bixiyo waa nasiib daro mararka qaar kood in lagu sheegayo ganacsatada ama maal qabeenka qaar kamid oo lagu xamarayo sakadii ma bixiyo hebel iyo wala barxaraa iyo xoolihiisu intaasay leeyihiin hadduu sakada bixin la waa la arki lahaa oo dadka qaar kood shaqaalo ay ka cabanayaan ay ku oranayaan hebelow macna hebelka aanu shaqeeyaa sakama bixiya ma u sii shaqeyn karaa ilaahayna maal sii marka haday yihiin ehelkeena iyo haday yihiin asxaabteena waxa mudan inaynu fariinta gaarsiino oo aynu u sheegno inaanu ku dhagaroobin waxa aroorta laga dhaxlayaa iyadoon abaal loogu qabin intoo ilka la dhiga isaga lagala wareegi doonaa oo dad kale ay ku tasarrufay ku raaxaysan doonaan
marka dadka in si fiican aynu ula talino inaanu haysanin xaq cid kale leedahay ilaahay xaqan ku siiyey ayaa boqolkiiba 2 u cayimay dadka fuqarada iyo sideedii qolo watarhiibu min man'iha waxa islaamkeenu ka diiday inaad sakada ku adeegto ilaahay baa wuxuu yiri walladina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquunaha fi sabiilillah fabashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ilaahay baa wuxuu yiri kuwa kaydsanaya dahabkiiyo lacagta kanzi waxa lagu tilmaamay bay leeyahay culimadu qofku markuu waajib ka bixin waayo ee aan ku bixinaynin meelaha khayrka leh waxaad ugu bushaaraysaa kuwa iyaga cadaab kulul waa maalinka la soo gelin doono dahabkii iyo lacagtii ay ku adeegi jireen oo balbalaaran oo bir iyo u eg safeexado baa dabka la soo gelinaya iyagoo cadaado kululba afarta jiha laga dhajinaya xagga hore xagga dambe iyo hareeraha waana lagu diganayaa waxa la leeyahay xoolaha kaydsanaysa waa kaa kulaylkiisa iska adkayso ilaahay baa sida quraanka ugu cadeeyay subhanahu wa ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يا لين بقول هاي آيات ذاك لكويري هو كو أضيق يوحي لهاي سياد ديقديسة بخيل لماذا سينا يوفي عنها يا مودي waxa inta ilaahay uu sii raaciyay bal huwa shar lahum waxa ay ku adeegeen waajibkii balaawiya qiyaamahana qoorta loogu duubi doonaa nabiga sii fasiray calayhi salaatu wasalaam aayado xadiid saxiixa buu ku fasiray wuxuu yiri qofku marka ilaahay uu maal siiyo ee uu sakada ka bixin waayo maalinta qiyaamaha waxa loogu eegaysiinayaa shujaacan aqra bahal masa oo bidaar leh sunta ku badan daraadeed labada miciyood buu ka gelinayaa labada meelood qof labada biyo boofle kolkaas uu la hadlayaa wuxuu leeyahay intuu qoorta iskaga duuba ana kanzuk ana maaluk ana waxaan ay waxa account-ka ku kaydinaysa ama xerada ku kaydinaysa ana waxaan ahay xoolihii iska xejiso waan ku hayaa maanta intaas waa nusuusta ka digaysa sheegaysa ciqaabka uu qofku yeelanayo aakhiro ifka marka uu joogo ama adduunyadana waxa uu qofku yeelanayaa cuqubo maaliya iyo mid badaniya macnaha cuqubadii ukhrawiga ahayd aakhira ku dambeysay aragnaye adduunka markuu joogana jirkiisana waa la ciqaabaya maalkiisana waa laga ciqaabaya maalkiisa waa laga ciqaabaya hadduu qofku sakada bixin waayo xoog baa laga qadaya waana lagu laban laabaya isagana waa lala dagaalamaya ومحو كل دجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن كي عربية سكدة ديدي سكديدهم بهاي مركو النبي يقول أنت بيد هذا أنت فلسفة ذيين هذا يقول ما قاضي كرتي سكدة أبو بكر النبي يقول قرأ ما قاضي يباش سكلا يلا السجانة إلى هاي وكلها الله يأخذ من أموالهم حوله هذا كقاد النبي قال لا هذي هذي قال له ما هذي كسر لذا يسلق النبي قال مياه هاي ساعة إلا بخيلكم قيل دايجي سو بدنيه ساسي وريغانو ابو بكر نينتو دارتيبا وحده والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه والله ان لا دغالمايو قفكا كلا ساري صلادي iyo sakadii ayri waan tukanaya sakada bixin maayo colbu heenseeyay dabeetana sidii buu kula dagaalamay ilaa isdiibayeen marka la eegan maayo qofkii xoolihii muslimiintu ay lahaayeen shuraakada ay kula haayeen sideedan qole ilaahay u cayimay ma bariyayaan waxaad ugu deeqaysana maaha iyaga iska leh marka hadaynu labadeenu isku darsanno xoolo de kuma murmi kartid intayda haddaad intayda ku muranto aad tiraahdo aroorta ku siin maayo cid waliba waxa oranaysa warwad waalanta ninkan xoolaha uu kula lahaaye qaybtiisa si iyaguna waa asaas oo kale sideedan qole ilaahay u cayimay ku bari maayaan qadarka loo cayimay shuraaka kugula yiin haddaad iibisana percentage ama nisbada shuraakada kula hayaan ma ansaxayo beecaagi waa faasid waxaynu gudbi lahayn qodobka labaad ee atharu zakati fi hayati almu'ti raad weyn iyo faa'iido weyn bay u leedahay oo dhiiri gelin kara qofka sakada bixinaya sakadu ayay u leedahay
faa'iidooyinkaa waxaa ka mida bakhaylnimada ilaahay uu kaga nadiifiyaa hiya tahiirun min ashux waa cudur cudurrada waaweyn bay ka mid tahay bakhaylnimadu qofku wixii waajibkaa uu ku bakhaylo wa kaana alinsaanu qatuuran buu ilaahay insaanku waa mid adayga wa uxdirat ilanfusu shux naftii bani aadamka waxa iskaga badan waxa bakhaylnimada la yidhaahdo shaxiixnimada bakhaylnimo ribanoo aada u adag waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun waxaana liibaanay qofka shaxiix inuu noqdo bakhayl aada u adag ilaahay uu ka badbaadiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu inala hadla wuxu uhi iyaakum washux fainamaa ahlaka man kaana qablakum war waxaa iska ilaalisaan waxa la yidhaahdo waxa bakhaylnimada la yidhaahdo waxa uu halaagay dadkii idinka horreeyay ama waxayba ku halaagsameen bakhaylnimada waajibkii bay ku adaygeen kolkaasaa ilaahayna uu halaagay subxaanahu wa tacaala sakadu waa tadriibun cala alinfaaq waalbadli bakhaylnimadana waa la bartaa bixintana waa la bartaa naftu waa waxaad bartown cibaadadana waad bari kartaa cibaado la-aantana waad bari kartaa marka sidaa uu qofku bakhaylnimadii iyo iskahaysigii adayga u baranaya maalinba hadduu in yar bixiyo sadaqada iyo faralka saa u sii wado wuu gaari karaa dadka kale ee ka horeeya marka casharada la qaatay la bartay ka mid tahay idan markaa waxa inuu qofku wax bixiyo waxaa ku tadriibinaya ama ku carbinaya horta inuu waajibkii bixiyo muxuu sunno gaari haddaanu waajibkii bixinin waajibka markuu ku xarago aduu meel iska dhigaabuu sunnahana usii gudbi doonaa marka waa casharo uu qaadanaya faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a waa takhalluqu biakhlaaqi illaah ilaahay akhlaaqdiisa aynu qaadanayno inaad ilaahay akhlaaqdiisa qaadatana nebigaa ku amray takhalluquu biakhlaaqi illaah xadiidkii saxiixa ah ilaahay akhlaaqdiisa qaata buu ummadda ku yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo siday akhlaaqdii ilaahay u tahay waxa weeyaan waxaa jira istighnaau can ilmaal waistighnaaun bilmaal inuu qofkii qaninimadii ka raadiyo ama ciddaas xoolihiioo la ururiyo iyo inuu qaninimadii ka raadiyo xoolihii oo la iska daayo marka ilaahay wixii ka soo hadhay isaga wuu ka maarmay wax alla waxaynu hayno wuu ka maarmay marka adiguna sifadaasaad isku shabahaysaa marka aada xoolihii ka maaranteed isdhaafiso laakiin haddii aada istidhaahdo ururi qaninimadii baad ka raadinaysaa inaad xoolihii ururiso taasina mid wanaagsan maaha sekadu waa shukru linicmati illaahi subxaanah waa faa'iidooyinka inoo leedahay ilaahay nicmadiisa aynu ku mahadnaqayna dee ilaahay baa ku siiyo wuxuu ku leey waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih wax yarun ka bixiya wuxuu ilaahay idiin dhiibay ee khaliifka ku tihiin wax yar bal u fiirsan nisbada la bixinayo 1/40 markaad maalkaagii oo dhan qiimayso waxaad leedahay loo qeybiyey 40 39 hayso rubuc waxaad bixinaysaa 1/40 40 meelood oo meel wey waa laba formalo la maro inaad maalka markaad sakeynayso midal ganacsiga lacagta iyo dahabka oo kale inaad 2% tidhaahdo oo 7.9 iyo badhay 8.9 iyo badhay soo hadhaan iyo inaad tidhaa loo qeybiyo 40 fasaas oo kale arigaagii halkaa joogun baad 40 meelood u qaybinaysaa mid baad bixinaysaa 39 waad la soo hadhaysa isku dhowdhowi idan markaa inaad ilaahay ugu mahadnaqdo weeye inta kuu soo hadhay iimaansigay ka mid tahay inaad eegto inta kuu soo hadhay baqiyatullaahi khayrun lakum intaa kuu soo hadhaa kuu khayr badana xalaasha ah laakiin haddaad eegto intaad bixisay balowday haddaad eegto inta aad bixisay nin baa waxa la wuxuu yidhi waddankeenu ka tirsanaayo wuu yar taajir bakhiila buu ahaa marka sekadiisuunbu eego waxay noqotay $10,000 tani sekad bay dhisaysaa buuri sekanimadeeda iska daayo wuxuu yidhi intaad seke sheegayso sekad baabay dhisaysa wixii ka soo saaray mabuu eeginba sekatu sawaad sekad la yidhaha buu ku dhisay sekada madowga oo ilaa hadda la kiraysan laayo marka ilaahay nicmadiisii baad ku mahadnaqaysaa subxaanahu wa tacaala wa cilaaju lqalbi min xubi dunya faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah cudur waliba dawuu leeyahay cudurrada qalbiga ee uu weyn yahay jacaylka adduunyada iyo in adduunyada loo waasho iyo maalka oo xaaraan lagu raadiyo waxyaabaa daweeyey ka mid tahay sekadu ilaahay ku daweeye subxaanahu wa tacaala maxabo iyo kalgacal bay soo jiidaayo ilaahay wuu kugu jeclaadaa inaad waajibkaa gudato waxa ilaahay ugu jecel yahay faral aad gudato ayuu ka jecel yahay sunnaha ummadduna way kugu jeclaataa waxay kugu lahaayeen inaad siiso oo aanad ku bakhaylin
barta sunna ha jooge inaad faralkii dhiibto ummadda ayaa kugu jeclaanaysa xoolahaaga loo ducaynaya oo adiga lagu ducaynaya oo tuuga laga ilaalinaya oo baalka laga ilaalinaya laana waa lagu sugayaa waxa la leeyahay 12 bilood markay dhamaadaan insha Allah hebel sakadib aan uga baranay buu bixin doonaa waad bixin weyday Soomaha adiga lagu habaaraya xoolahaaga la habaaraya cadawga lagu hogaaminaya karis xuniyana wax kula sakadu waxa weeyaan waxaan xusid mudan inaynu ogaano annaha la tudahhiru al-maal al-haram hadaad xoolo badan ururiso dadka xooloodii baad ka khiyaamaysay danihii guud baad iska boobtay dabeetana xoolo badan baad sugayso waxa tiri ma sha Allah isu kale isaka bixinayaa adigana ku nadiifin mayso xoolahaagana nadiifin mayso wax dad kale aad sakeynaysaa yaalade adigu malihi rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay in allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban ilaahay wanaagsan waxa wanaagsaneyn ma aqbalo waniyatu alhasanatu la tubarriru alharam inaad niyad wanaagsan nala hortimaada xaraanta kuma xalaaleynayso taasina waa mid mudan inaynu ogaano sadaqo iyo sako iyo xaj iyo siyaaro iyo duco midna kama ansaxayo qof xoolo xaraana ururiyay xaraana waynu naqaanaa hadeynaan isyeelyeelayn arrimaha muqaddamada iyo hordhaca ayaynu ku soo gaabsan doonaa xiisadan ama casharkan isaga ah laakiin waanadeenu waxa weey sida quraan iyo xadiis bay noo sheegay qof walba waxaad hayso waa inaad eegtaa shuruudihii sakada in laga helay waxa ka shuruudaha sakada maalkan ma leedahay waxa laba ka ah ma gaaray qadarku ku sakoobay ilaa wax waliba qadar uu ku sakoobaa buu leeyahay ma u soo wareegeen 12 bilood oo xawlka loo yaqaano shuruudaha kolka laga helo waa inaad iska dhiibtaa oo aanad ku safaadin oo aanad sagsaagin Allah inoo fududeeyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.